السلام عليكم. بدنا عاصمتها iyo magaalooyinka marka habeenkii la gaaro waxa caado ah inay faraaqan noqdaan sababtoo ah dadka badankoodu way kala seexdaan dhaqdhaqaaqa badankiisuna wuu istaagaa. Haddaynu Soomaalinahay tiradaba kuma jirno sababtu waxa weeyaan waynu isku ognahay magaalooyinkeena waaweyn inay fiidka faraaqan noqdaan marka laga rabo meelaha lagu caweeyo ee caasimadaha ku yaala. balse waxa jira magaalooyin laga soo tooso xilligii la seexan lahaa ama aanay dadkeedu seexanin oo habeenku uu yahay maalintoo kale. sidoo kale waxa la sheegaa in horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada kale ay magaalooyinkaas ka dhigaan kuwa laga soo jeedo habeenkii oo dhan dadkeeduna ay shaqeeyaan. arrimaha walwalka iyo walaaca laga muujiyo ayaa ah in haddii magaalada laga soo jeedo habeenkii oo dhan uu faraha ka baxayo buuqa taraafiga iyo isticmaalka daroogooyinka iyo mukhaadaraadka kala duwan. haddaba maanta ama caawa kolba kii aad daawanayso ee uu barnaamijkani ku soo gaadho mawduuceenu arrimahaas ayuu daaran yahay waana kuwan qaar ka mid ah magaalooyinka laga soo jeedo habeenkii oo dhan. sida laga soo xigtay diiwaan dhawaan la soo saaray oo lagu daraasiyey magaalooyinka caalamka ee 24 saacadood laga soo jeedo oo magaalada London ay kaalinta 17aad ka gashay halka Paris ay ka gashay kaalinta 18aad. magaalada koobaad New York City, magaalada New York oo loo yaqaano magaalada aan weligeed seexan. magaaladan gabi ahaanba lama xidho meel kasta sida khadka tareenka dhulka hoostiisa mara, makhaayadaha cuntada, hodheelada, caweyska, isu socodka magaalada, meelaha lagu caweeyo, beeraha iyo guud ahaanba shaaracyada magaaladu waxay u furan yihiin sida maalintii oo kale. dhaqdhaqaaq kasta sida caadiga ayuu u shaqeeyaa waxaanay furan yihiin ilaa 5 aroornimo. doomaha lagu kala gudbo ayaa iyaguna shaqeeya xilli kasta. dhibna ma aha in xilli kasta New York laga helo cunto iyo madadaalo labadaba. sidoo kale waxaa jira goobaha wax qarash ay kaaga baxaynin oo ay ka mid tahay Times Square oo astaan u ah magaalada sidoo kalena ay jecel yihiin dalxiisayaashu. waxaana caado u ah dalxiisayaasha magaaladan soo booqda inaanay marnaba seegin goobtaas. aynu ka gudubno magaalada aan weligeed seexan oo aynu u gudubno magaalada labaad oo ah Buenos Aires, Argentina. Argentina waxa loogu yeeri karaa waddanka hurdo la'aanta. caasimadda bilicda quruxda badan leh ee Buenos Aires waa mid aad ku xiiso gelinaysa haddii aad doonayso inaad qoobka ciyaar ka qayb gasho ama aad daawato goobaha sida tooska ah musiga looga tumo iyo inaad cunto cuntooyinka macaan ee magaalada. sidoo kale waxay magaaladani caan ku tahay madadaalooyin fara badan oo habeenkii wadooyinka laga sameeyo. haddii aad soo booqato magaaladan waxaad si nabad ugu dalxiisi kartaa wadooyinkeeda, shaaracyadeeda adigoo aan wax cabsiyo dareemaynin. Krober waxay ka mid tahay goobaha ugu caansan ee lagu caweeyo ee shaqeeya xilliga habeenkii. balse haddii aad doonayso meel aamusan oo degan waxaad tagi kartaa El Viejo Almecan oo ah goob taariikhi ah halkaasoo aad ka daawan karto ciyaaro badan oo qoobka ciyaar ah isla markaana si layfa loo soo bandhigayo. haddaba ku dheeraan mayna caasimadan waayo waynu soo qaadanay inta ugu mudan ama ugu caansan. aynu u gudubno caasimadda saddexaad Qaahira, Masar. liiska caasimadaha soo jeedka 24 saac ee guud ahaan caalamka magaalada Qaahira waxay kaga jirtaa kaalmaha hore sida caasimadda Montevideo ee dalka Uruguay oo kale iyo Beirut iyo 6 magaalo oo Spain ku yaala. nolosha habeenkii iyo sawaxanka 24 saacadood ee Qaahira waa wax iska caadi ah oo waa magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 20 milyan oo dad ah. sida caadiga ah ama ay caanka ku tahay magaaladani dadka reer Qaahira qaar badan oo ka mid ah waxay cabaan kafeega waxaana asxaabtooda waqti kula qaataan maqaaxiyaha. sidoo kale meelaha aadka u camiran ee habeenkii laga dukaamaysto waxaa ka mid ah suuqa weyn ee aan hurdada laga aqoon ee Khan al-Khalili oo ah goob camiran oo hadhiyo habeenna aan kala lahayn oo ay caan ku tahay magaalada Qaahira. haddii aad doonayso inaad muusig dhagaysato waxaad aadi kartaa goobaha qoobka ciyaarka iyo muusigu ka socdo oo ay ka mid tahay Venus Live Music oo ah goob ay caan ku tahay magaaladu oo lagu caweeyo. waayahay aynu macasalaamayno Qaahira oo aynu u gudubno magaalada afraad oo ah Tokyo, Japan. inta badan magaalada Tokyo waa mid dad badan. waqti kastoo ay tahay habeen ama subax waad bilaaban kartaa noloshaada xilligaad jeceshahay waxaanay kala siman tahay magaalooyinka ay liiska kula jirto. runtu waxay tahay inaad ka heli doonto nolosha habeen ee magaalada Tokyo. sidoo kale habeenka dhexdiisa waad safri kartaa wax badan ayaadna arkaysaa haddii aad soo jeedo habeenkii. magaalada shanaad waa magaalada Beirut ee dalka Lubnaan. magaalada Beirut waxay sidataa macnaha dhabta ah ee habeen soo jeedka. suuqyada Beirut oo ay qayb ka yihiin goobaha laga dukaamaysto iyo faras magaalaha waxay ka mid yihiin meelaha ugu caansan saamaleelka habeenkii. haddii aad doonayso dalxiis kaliya
booqo goobaha lagu qabto munaasabadaha dabaaldegyada halkaasoo mar walba ay ka socdaan munaasabado kala duwan oo cajiib ah xilli kastoo ay ahaataba waxaana xaqiiqo ah inay magaaladani gaar u leedahay goobo badan oo cajiib ah oo aynaan ku soo qaadan mawduuceennan gabagabadii barnaamijkeennan kooban ee aynu ku soo bandhigaynay magaalooyinka ugu mudan ee ku sheegan saamaleelka caalamka intan buu ku egyahay nabadgelyo